السلام عليكم أصحابنا. مدحوين ترامب iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa caawa casho waxa ay ku kulmeen aqalka cad ee Mareykanka. Netanyahu waa uu joogay Mareykanka oo shalay ayuu yimid. Waa markii saddexaad ilaa iyo markii Trump la doortay ay Netanyahu iyo waliba Trump ay sarkaan. Waxa uu u yimid in xiriirka labada Israa'iil iyo Mareykanka ka dhaxeeya inay ka wada hadlaan, laakiin cashadii markii la isugu yimid waxa arrin la yaab la noqotay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu bashqad xiran oo Trump kaga naxsaday oo wuxuu yiri waxaan ku magacaabay in aad tahay mid ka mid ah dadka u sharaxan biladda nabadda ee sanadkan. Ma uusan ogeyn Trump wuxuu yiri arrintan kadis ayay ugu noqotay. Marka Netanyahu waxa uu yiri waraaqdan waxaan u diray guddiga bixiya biladda nabadda, sidaas darteed si aad uga mid noqoto dadka sanadkan biladaasi la siinayo. Haddaba Trump wuxuu ku mutaystay arrintan ayaa laga yaabaa inaad isweydiisaan in biladda nabadda uu ku guuleysto. Trump waxa ay taageerayaashiisa ilaa iyo markii uu joojiyay dagaalkii Israa'iil iyo Iiraan u dhaxeeyay 23 bishii hore uu sheegay in isagu uu mas'uul ka ahaa joojinta, walow labada dal mid waliba dhibaato xoogan ay gaartay oo iyaga nafsad ahaantooda yaa naga joojiyaba ay ka taagnayd. haddana Trump ayaa loo sababeynaya inuu joojiyay. Sidoo kale labada wadan ee nuclear-ka haysta ee Pakistan iyo India markii iyaguna ay iskaleen bishii Abriil, sidoo kalena in isagu uu joojiyay. haddana waxa uu wada hadal ay Hamas iyo Israa'iil yeelanayaan oo dagaalka Gaza la doonayo in muddo 60 maalmood ah lagu joojiyo, maxaabiista la kala haystana la isweydaarsado. marka Netanyahu waxa uu leeyahay wax badan ayaad qabatay, dagaalo fara badan ayaa joojisay, sidaas darteed biladda nabadda adiga ayaa mudan sanadkan in lagu siiyo. lama ogo in la siin doono iyo in kale. Trump mar waliba waa uu jeclaa inuu biladaasi helo. hadda ka hor Obama markii la siiyay waxa uu yiri Obama muxuu arrimahaasi ku mutaystay markii uu madaxweynaha uu Obama wadankan ka ahaa. bal adigu Trump ma mudan yahay in sanadkan biladda nabadda la siiyo? bal qaybta commentiga nagula wadaag. laakiin isaga Netanyahu ayaa caawa kaga naxsaday oo bashqadaasi u dhiibay. waxa uu yiri guddiga biladda nabadda bixiyana waan u diray, adigana sidoo kale hadda ayaan ku dhiibayaa oo waan ku magacaabay. marka dad fara badan oo saynis yahano isugu jiro, dad nabadda wax ka qabtay, dad bini'aadanimada wax ka qabtay ayaa la soo sharaxaa sanad kasta. marka Trump sanadkan sanadkiisii ma noqon doontaa oo ma ku guuleysan doonaa? waynu arkaynaa. sidoo kalena waxyaabaha ka soo baxa, laakiin Netanyahu waxa uu leeyahay kolley waan ku magacaabay ee good luck. waxyaabaha kale ee soo kordho waa idila soo socodsiin doonaa asxaabay. aad iyo aad u mahadsantihiin.